وكلاقنا با تا جا حا خا دا را سا شا ضا عا waxaanu nahay arday aqoonta u helano aroortii baan kacna ilkahaanu cadayana oogada nadiifina ma ilowne waan shanlaysanaa kadib waanu afurna alaabtaanu qaadana ehelkan sagootina mataane waanu oranaa daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii taxanaha ahaa ee asal raaca afka Soomaaliga waxaad nooga barateen in barnaamij kasta aan ku soo qaadanno saddex eray oo ku saabsan asal raaca ereyga afka Soomaaliga ah ama sixitaanka qoraalka oo khaldama taasina ay keento inuu khaldamo ama isbedelo micnihii loo jeeday saad ku aragteenba barnaamijkii kan ka horeeyay daawadayaal maanta waxaanu soo qaadan doonaa saddex eray oo u tagi doono asalkooda waana saddex eray oo aad u culus waxaana ka iman kartaa dood badan haddii aad wax dooda qabto noola soo xidhiidh si furan adigoo nagala soo xidhiidhaya telefoonada iyo emailada ku qoran barnaamijka marka uu dhammaado xaggiisa dambe waxaanu baanahay saddex eray inaan maanta isla eegno asalkoodii hore halka ay ka soo jeedeen ereyga koowaad wuxuu noqonayaa ereyga Soomaali oo inagu waxanahay Soomaali wuxuu noqonayaa talow waxa kale oo u baahanay isagana inaan maanta isla eegno ereyga guur oo isaguna erey aad iyo aad u culus ah waxa kale oo isla eegi doonaa ereyga isaguna loo yaqaano maanso saddexda ereyba waa saddex erey oo aad u daaweyn laakiin isla eegno inta aqoonteena iyo aragtideena iyo inta aan ka bartay bulshada ama dadka iga aqoonta badan af Soomaaliga han ku horeeyo ereyga Soomaali wala ereyga Soomaali sida imika uu qoran yahay sa laba oo ma iyo double ama laba iyo la maaha laakiin waa sida imika uu qormo oo uu isbedelay qoraalkiisu laakiin asalkiisii hore wuxuu ka yimid laba erey oo la isku daray oo labada mid walba iskiisa aanu micnayn doono inta karaankayga isku day doono inaan idin fahamsiiyo oo aan idin sharaxo qofka inta ku fahmi waayana ama qofka inta aqoon ka badan haya hanala soo xiriiro barnaamijka dambana ka hadli doona si aan bulshada ugu faa'iideyno si wada jira ereyga Soomaali wuxuu ka jeedaa laba erey oo la isku daray oo noqonaysa so iyo maal ereyga so horta balan soo hufno isaga laftiisa waxa la ereyga soo wuxuu leeyahay macnayaal badan buu leeyahay qaar kamid ah marka aynu soo qaadano soo waxa loo yaqaanaa meesha u dhow ceelka soo baa loo yaqaanaa meesha xoolaha lagu joojiyo intaanay biyaha cabina waxa loo yaqaanaa sabo waa tii heesti ahayd oo sabada ceelkiyo soodu tahay agtiiso heesti xasan gani marka soodu waa meesha daaqa leh ama dooga fiican leh ee xooluhu markay cabaan ay ku foofaan si ay ugu wabax baxaan halkaas soo baa loo yaqaanaa waxa kale oo soo loo yaqaanaa neefka xoolaha ah marka la qalo marka la gowraco wuxuu u qaybsan yahay laba qaybood oo waa so iyo saan saantu waa haraga dusha sooduna waa hilibka ku jira ayaa loo yaqaanaa soo waxa kale oo soo loo yaqaanaa hilibkaas subagaas caanahaas waxa soo dhan waxa loo yaqaanaa maxay waa soo ama waxa weeyaan waa oontii xoolaha ama waxa weeyaan wax soo saarkii xoolaha weey ereyga maalna waa ku tiirsanaasho ku noolaasho marka wuxuu noqonayaa Soomaal dadkii Soomaalka ahaa dadkii ku tiirsanaa wax soo saarka xoolaha oo waxaan taariikhda ku haynaa soo jireenka Soomaalida inay ahaayeen dad noloshoodu ay ku tiirsan tahay wax soo saarka xoolahooda soona saasaan soo micnaynay oo waa subaga hilibka iyo caanaha uu neefku leeyahay guud ahaan soo baa loo yaqaanaa markaynu kacno xagga xoolaha ereyga maalna waa ku tiirsanaasho waxa luqadda Ingiriiska loo yaqaano dependent on ku tiirsanaasho ku noolaasho sidaas marka ku imanaya ereyga Soomaal
waana mid ku sax ah doodo badan baa jira dad badan baa yiraahdaa waa Soomaal laakiin Soomaal waxa weeyaan waa dood jirta laakiin waa dood daciif weey kaas waka ereyga ku xiga isaguna waxaan soo qaadanaa ereyga loo yaqaan guur waxaan u kala qaadaynaa labo ama laba macno ayuu leeyahay mar waa guur oo waxa la yiraahdo qofkaas hebel uu guursaday ama heblaye waa la guursaday reerku marka uu ninku ka baxo reerkii awal ka tirsanaa ee uu reer cusub iyo samaysto oo reer yeesho waa reerkii uu ka guuraa oo meel gaara ayuu degaa marka qofkaas uu guuray guurid waa taa weey mar waa sida marna waa si kale oo iyadana rabo inaan ku qanciyo macna ahaan aad oran karto waaba toogu dhow ereyga guur wuxuu ka soo jeedaa isaga laftiisu laba eray oo la isku daray ama la isku lifaaqay oo noqonaysa gu loo geeyay ur oo noqonaysa marka urtii guga ama gu urta guga maxaa marka guga iyo ur isu keenay waxa weey Soomaalidu waxay ahaayeen dad xoolo dhaqata ama maanta ay yihiin qaarkood dad xoolo dhaqata noloshooda mar walba waxa saameyn jiray oo saameyn ku lahaa cimilada sida abaarta iyo guga labaduba meesha ay degayaan iyo sida ay u noolaanayaan ayaa waxa weeyaan ayaa maamul jiray marka abaartu dhacdo Soomaalidu ma haleeli jirin inay nastaan inuu ninka dhalinyarada guursada ma haleeli jirin waxa meel baad iyo biyele la raadsan jiray xoolaha ay dhaqdaan oo ay ku tiirsan tahay noloshoodu ay la tagi jireen kadibna marka uu gugu soo bilaamayo saxan saxada ama leeyda ama urta gugu ay bilaabanto ayaa iman jiray guurkuna iman jiray oo xilligaas bay reeruhu degi jireen la isguursan jiray aroosyadu dhici jireen marka waxa noqonaysa waxa weeyaan waa saxan saxadii ama leeydi ama urtii guga oo waxa ahayd astaanta lagu garto guga ama astaamaha guga waxa kamid ah inuu dhaco aroos Soomaaliya ama aroos Soomaaliyeed uu dhaco ayaa kamid ah marka waa gu oo guga ah roobku badan yahay oo roobku doo aduu barwaaqada yahay loo yaqaan guba loo yaqaan iyo ur oo loola jeedo saxan saxadii iyo leeydi waxa weeyaan roobku watay taasina waa sida wixii dood ka qabto ama aqoon saa'id oo intan ka badan aad u leedahay waad nagu soo kordhin kartaa si bulshada aan mar kale u saxno ama mar kale aan ugu faa'iideyno erey kale oo isagana aan idin soo sheegay ereyga maanso isagana aan kala qaadno labo marka koox wuxuu noqonayaa waa maan iyo so marka xaga kale laga eego waxa noqonaysaa garashada fiican ama hadalka wanaagsan ee nuxurka ah Soomaaliman ka hadlaynay imika Soomaali socda waxaan ku soo sheegnay inuu yahay nuxurka ku jira neefka ama hilibka ama caanaha waxtarka marka hadalka inta waxtar kale ayaa marka halkan la joogo noqonaysa maxay waxa noqonaysa soob noqonaysa waa miidi iyo dhadhankii hadalka maan kuna maxay waa garashadii weey marka qofkaas uu maansooday macnaha maanso marka la maxaa ku soo dhacay markaaba waxa ku soo dhacaysa inaad ma taqaana qofka uu dhaa maansaan marinaya ama maansaan haya waxa laga yaabaa inaad markaaba dhigta u dhigto inaad maqasho hadal tix ah oo murti badan ku jirto marka waa maan oo garashadii iyo so oo noqonaysa miida ama dhadhanka ama nuxurka ku jira hadalkaasi daawadayaal barnaamijkeenaasina intaas ayuu inoogu dhan yahay waa tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamij noocan oo kala ah intaana waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waxaan kaloo aad u salaamayaa saaxiibkay baahiyaha iyo isku dubaridaha barnaamijka wariye Maxamed Faarax Bile erayadan hingaadina af ay il og iyo usbaanu meerina waxaanu nahay arday anshax wanaagsan oo sharcigan ilaalina iyo hamsaanu horina shaqaladana qoonsana